joogtaan waa idin salaamay walaashiina Dr. Jiya. Maanta waxaan ka hadlaynaa dhowr arrimood oo laga dhaxlo daawashada aflaanta. Intaynu guda galin muuqaalkeena maanta, fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar, like dheh, commentigana fariina nagu reeb. Haddii aadna ka mid tahay asxaabta noloshayna, fadlan like inoo saar, siina share garee. Raggu gabi ahaan in ay nacaan ama ay caajis ka qaadaan guurka xalaasha. Caadada sirta ah ama sigeysiga ayuu ninku si weyn u joogteynayaa. Taasina waxay u keenaysaa dhibaato aad u daran. Waxa caad iyo madowba ka fuula indhaha iyo qalbiga marka ay basadaan daawashada filmaanta jinsiga ama filmaanta xunxun rag iyo dumarkaba. In qofku uu isku arko hilmaamid aan hore u qabin. In uu dareemo qofka jinsi aan jacayl iyo galgacaylba aan la socon. Ragga in ay ka dhaxlaan biyabax degdeg ah. Dumarku badanaa waxa ay ka dhaxlaan hamiyarida ku timaada xagga sariirta ama wada raaxaysiga saygeeda. Haddaba waxaan kula talinayaa in aad joojiso daawashada aflaanta ama filmaanta. Wuxuu ku horseedi karaa dhibaatooyin saameeya noloshaada ama mustaqbalkaaga dambe. Mid jismi ahaan iyo mid maskax ahaan. Haddii aad ku cusub tahay, subscribe inoo saar. Haddii aad hore noola joogtadna, like inoo saar. Siina share garee, una share garee asxaabta.